السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحوك سدي هالكان إن كلا الله ويدرع official فضلا نقص بير هديات نقول عصب تاي مغال كان لي جراء وحن كوجد جرني موضوعي هرمرين النفط. قف كبني آدم كنفتي سنو هرمريو لكن وحي كلا هذا هاي طبقات يو كلا سرين يو أسبابه لقو كسبان كرو إن نفط الهرمريو سي يقولوا جارتو. ما أنت وحن ربعنا إذا لو ذاقو تضبط الداء ku horseedi karo inaad guul gaarto toddobadaas haddii mid kasta say tahay aad u dhaqan geliso bilxaqiiqa waxaa weeyaan waxaad noqonaysaa qof nashaad iyo horumar iyo tiigsi wanaagsan leh haddaba waa maxay toddobada waxaa ah dadaalka kama soo haro qofka bani aadamka ah inuu u horseedo guul iyo wax la taaban karo dadaal dulqaad daacadnimo deeqsinimo dad la socod dabacsanaan iyo dabeecad wanaag toddobada haddii mid kasta say tahay aad u dhaqan geliso waxaad noqonaysaa qof hor u socod leh hiigsi leh hamigiisuna uu yahay mid meel ku salaysan dulqaadka si ahaanteedaba waa qofka bani aadamka ah waxa u horseedi karo in uu sameeyo wax kasta oo soo wajaho inuu dhabar adeego haddiise qofku uu dhabar adeeg uusan lahayn oo dulqaadkiisu yar yahay waxa weeyo wixii halkii bay ku fashilmayaan daacadnimadana waxa weeyaan sidoo kale qofka haddii uusan daacad ahayn oo uu laqdabo badan yahay inta badan laba iskuma hagaagto waxaa la mid ah iyaduna dabeecad wanaag qofku waxa weeyo haddii uusan qof kasta uusan wax la sheer gareyn karin bulshada uusan maartay sumcad iyo magac uu ku dhaxlahayn leeyahay qofka markii uu dabeecad wanaagsan leeyahay bulshada inteeda badan waxa weeyo wuxuu ku dhaxleeyahay magac iyo astaan gaar ah leeyahay wuxuu noqonayaa qof la aamino qof ma garanaysaa dadnimadiisa iyo maartay qofku uu yahay shakhsiyadiisa qof maartay inta badan dadkii ka dhagsan yihiin leeyahay dulqaadku waa wax aad iyo aad u wanaagsan dabeecad wanaaguna sidoo kale deeqsinimadana waxa weeyo qofku haddii uu deeqsi yahay wuxuu kasbanayaa bulsho badan inay hoos timaado biri ka maalin wixii asaga soo food saarana waxa weeye wuxuu helayaa gacan iyo garab istaag wanaagsan intaas markii la isku soo koobo waxaa jiro wax fuuqsanahayo oo intaaba toddobada ee aan soo sheegayba wax isku fuuqsanayo hoos imaanayaan baa jiro waa maxay waxa ayaga ah waa kelmadda la yiraahdo kalsoonidu waa waxa qofka bani aadamka aan nafsad ahaantiisa u xaqiijin karo inuu yahay ruux jiro haddii uusan lahayn qofka kalsooni naftiisa uu ku qabo وما صورت جلسة إنه تلعب قاضو لأن واحد كستو وحول ليه هاي واتكون فشل ميسا مثلا مين كرتي كونوي وحاسل وليه ولا يابها يا أضو سانا محاو ماشان كو جيبا لوليه هاي أضو وحان كوقل من وابحيبا لوليه قفكو ولول با كل حابورا هدي أصلا لهين كالسوني يوكل ديرش أصلا لهين قفك هدي وكالسوني نفتي سوكو قبو وحاوهر السيدي سا إن هد يتشير وحوالبو oo arko in nafsad ahaantiisa ay hore u wadi karaan inuu ku dhiirado oo maaragtay uusan cidna uga aabayeelin arinta ayada ah qofka hadii uu kalsooni leeyahay waxa u suurta galayso in naftiisu waxa ay ku hormari karto uusan cid bani aadam la hoostagaynin oo uusan oranaynin waxaana rabaa inaan sameeyo aday kugu xiran yihiin waa inaad garab istaagtaa وأنا دلنكان يقول واحد قفك بني آدم مركي نفتي سوء كرسوني كو قبو قوامد وأساق ليه هاي أساق بالانجريستو أساق كبار عندقو أساق ماركتاي قيميستو هادي تشير وحي كغسو نقول لها بو كفيريا ميلب آد وبدن سيدو كلا قفك مركي نفتي سوء كرسوني كو قبو waxa u suurta galayso tilaabada uu qaadayo ee hore u wado in ay ahaato mid aan kalaabasho lahayn oo go'aankii ahaa inuu horumar sameeyo buu ku taagnaanayaa caqabad walba soo wajahdana wuxuu leeyahay taama wax ii yaalo
anigu hadaf baan leeyahay, hadafkayga ii cad. kalsoonidu waxay qofka bani aadamka ay u horseedi kartaa in dhabarjabka ku imaanahayo uusan u arag wax sideedaba qofka hoos u dhigi karo, wax dibdhac u keeni karo, wax maaragtay hadafku leeyahay dalfin kara inaysan ahayn. kalsoonidu qofka bani aadamka waxay u horseedi kartaa in uu ku noolaado xornimo. xornimo markii aan leeyahay, qof kasta oo bani aadam ilaahay uu samaystay markii laga yimaado inuu addoon ilaahay yahay waa qof xor ah. laakiin waxaa jiro dad ay ka maqan tahay inay xor yihiin. waa maxay dadka? waa qofka aanba aaminsanayn inuu qof ku tiirsan yahay maahane in uu noolaan karaba. noloshan qofka bani aadamka ilaahay markii uu geliyey waxa uu u yeelay shakhsiyad bani aadanimo. bani aadamkana sidiisaba ilaahay subxaanahu watacaala waa u karaameeyey. waa tan ilaahay subxaanahu watacaala aayad quraan uu ku leeyahay walaqad karamnaa bani aadam. adigoo karaamaysan oo ilaahay subxaanahu watacaala ku karaameeyey, in nafsadaada aad ka dhaadhiciso in aad qof ku tiirsanaato ma ahan inaad noolaan karin. waxay noqonaysaa in aad noqoto qof nolosha ka dhaco nafsad ahaantiisa iyo shakhsiyadiisa iyo wax walba oo ku saabsan qofnimadaada inay ahaanayaan kuwo hoobta hoos u dhaca. haddaba waa maxay qofka bani aadamka ee ilaahay samaystay waxyaabaha uu ku gaari karo hadafka uu leeyahay? waxyaabaha hadafka uu leeyahay uu ku gaari karo waxa aas u ah ereyga la yiraahdo ama kelmadda la yiraahdo kalsooni. haddaba haddii aad isku kalsoon tahay, waxyaabaha kuu suurtagalahayo ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo, waa wax aada u fara badan. qofkana nafsad ahaantiisa waxa uu ka hormarin karo oo uu ku ahaan karo ruux jiro ee bulshada ka dhex muuqdo waa inuu asaga kalsooni isku qabo. kalsoonidu waa wehelkaaga. kalsoonidu waa furaha guusha. kalsoonidu waa iftiinka aad ku soconayso. kalsoonidu waa nolosha aad ku nooshahay. kalsoonidu waa hiigsiga aad hiigsanayso. haddaba si markaa ay u suurto gasho in kalsoonidaas aad ka midho dhaliso, waa inaad ahaataa qof casiimo leh. ereyga aad baan u isticmaalaa. go-aanka waa waxa qofka bani aadamka sidiisaba horay u wadi karo, riixi karo, buushgarayn karo. waa go-aanka. haddii aadan casiimo lahayn, kalsoonidaaduna meel ma qabanayso, shakhsiyadaaduna ma jiri doonto, hadafka aad leedahayna ma tihid mid gaari doono. si aan u wada gaarno hadaf, aan wada soconno, aan ahaano kuwa kalsooni haysta hadafka aan sheegayno. ma ahan inaan hadafka aan leeyahay aan gaaray, ma ahan adigu inaad gaartay. si aan u wada gaarno waa in go-aankaas aan ka midho dhalinaa, naftanadana aan siinaa kalsooni ku filan si aan u ahaano kuwo horay u socdo oo anbaqaada. waa anigoo xoogsade, waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.